السلام عليكم دمان أصحابتك وحرن channel قنعية official وإذن سلام دمانتين بس أود دنتين حتى بكسود هذا مقال عصب مقال كان ما أنت إدين وذن وحواي مقال كان مقال آد أفضلهم واي ما نتجعلي إنا إذن سوقد بي لكن وحاربا وحياوي إنا إذن كدحتصو أو معناها Soomaalida uma leeyaan waxyaabo fiican inay sameeyaan laakiin waxyaabo kale hoos jiraan marka inta horta waxyaabahaas gelin waxa rabaa muuqaalka wax yar isla daawan ma ku wada dhamaanayno kor aadan ka tusaa bis koos wax la daawan kara ma ahan faatiin marka isla daawan waan salaam walaalayaal waxaan idinku salaam magaca rabbigeena iyo badbaadiyeena Ciise Masiix walaashin Samson waxaan soo jeedinayaa aayada maanta waa aayad ku saabsan waano waa kitaabka Galaatiya cutubka 6 aayada 1 iyo aayada 2 marka casharkani waa waano oo lala hadlayo kuwa qusduusiinta ah in ay kuwa kale markay dambaabaan ay sidii ula dhaqmi lahaayeen ama markay kuwa kale xad gudub sameeyaan ama kuwa kaniisada kamida oo jirkooda intuu daciifnimo galo ay dambaabaan sidii ula dhaqmi lahaayeen marka waxa la leeyahay walaalayaal oo nin hadii xad gudub lagu qabto kuwina ruuxa raaca midka caynkaas ah ku soo celiya qab maraba muuqaalka ina ku sii yaraado saayla aragteen waa muuqaal aad u falxun wallahi waxa dhahalaan faantiin ayada quraan kalaamka alla ahaan ma jirtaba ayada marka hadda waxay sheegaysaa ayada inay aqrinaa iyo waxay daldal soo aragteen marka muhiimada muuqaalka u soo jeesano muhiimada muuqaalka waxay tahay saa aragteen muuqaalkan gabadha waxay ku hadlaysaa af Soomaali Soomaalidan waa taqaaniin qof diinta u gafaayo oo af Soomaali ku hadlaa day arkaan waa ku dhamaanayaan horta waxa waay waa arin fiican balse meeshas boontiga ku jiro wuxuu yahay qofkan hada maanta muuqaalkiisa comment ka soo bixisid caysid ama like gareysid it means horta comment hada ka soo bixisid waxa waay waa u share gareysabo shareka caadiga adoo taabtay la mid tahay hada comment ka soo bixisid waxa waay qofku ag joogo uu gaaray qofka dariskaaga uu gaaray qofka wadan kula joogo uu gaaray already muuqaalkaasna hadda saa aragteen waxa la gareystay ku dhawaad 400 meelaas saacad wax yar u yaala 400 it means waxa waay waa ka helnay gaala waxa la saaro gaala ma ahan Soomaali waay koos gabadh waxay ku hadlaysaa af Soomaali marka hada la gareysid it means waxa waay muuqaalkan waaba ka helay marka taas raba inay idinka jaahil bixiyo aan idin sheego muuqaala saas camal meesha ku aragtaan iyo dad diinteena macaanta badan u gafaayo muuqaaladaas oo kale inaan faraha saarina hal mid waa sameyn kartaa daarad waa report gareyn kartaa laakiin muuqaalka hada la gareysid ama muuqaalka comment ka bixisid it means waa share gareysid qofku wuxuu rabaa u sameeyay waxaasna waxa waa deefafan waxa waay daayirta soo baxays waxyaabahaas camal ay arkaan iyo daayirta wadamada shisheeye joogo waxa waay waxa la yaabaa inay hor u qaataan marka waxa idin ku codsanaa muuqaal noocaas hada aragtaan inaa faraha ka qaadaan hal mid waa ku sameyn kartaan inaa report gareysaan ama faraha kala baxdaanbo markay hadalka ku dheereen muuqaalkan marraba inaa ku sii dheeraado muuqaal aad u fool xun u ahay waxa waay dadkaasna waxa leenahay Ilaahay ha soo hanuuniyo wax kala adii karna malahan Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha soo hanuuniyo markay hadalkan ku dheereen haddaan ugu cusubtahay muuqaalka noo la garay sidoo kale cibaadka subscribe noo saar sidoo kale qaybta comment waxa ku soo qortaa fikradaada ee hadalkan ku dheereen muuqaalka ku xigta intaan kulmi doono insha Allah sidaas iyo amaan Allah